waxa isi soo taraya qasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay weerarkii isbidaaminta ahaa ee shalay gelinkii dambe lagu qaaday hotel Elite oo ku yaala xeebta Liida ee magaalada Muqdisho waxaana tirada dadkii ku geeriyooday inta la hubo ay gaarayaan 17 qof marka lagu daro hal qof oo kamid ahaa dhaawacyadii la geeyay isbitaalka Digfeer oo halkaasi ku geeriyooday waxaana tirada dhaawacyada ay ambalaasyadu qaadeen ay gaarayaan 42 ruux oo la kala geeyay isbitaalada Keydsanay iyo Digfeer sida uu VOA u sheegay madaxa Amiin Ambulance Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Aadan afhayeenka ciidanka booliska Sadiiq Aadan Cali oo xalay goor dambe la hadlay saxaafadda ayaa ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen iyo inta ay la eg tahay qasaaraha goobta ka dhashay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Allahu naxariisto muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku nafbaayay qarax ay qolyaha argagixisada ahaa u soo abaabuleen galabtay 5 iyo 9 daqiiqo ama 12 iyo 9 daqiiqo ayaa qarax ismiidaaminaha oo loo isticmaalay gaari laga soo buuxshay walxaha qarxa iyo argagixiso isla markaasna rabtay inay qasaare geysiiso dad shacab ah oo ku jiray hotelka Elite ee ku yaala degmada Cabdicasiis qaraxa markuu u dhacay argagixisadu gudaha ayay u galeen hotelka waxa meesha ku dhintay qasaare dhimasho ayuu qaraxu keenay oo gaaraysa 16 qof 12 qof oo shacab ah iyo 5 kamid ah nafti halagayaasha ugu tala galay inay naftooda iyo nafta shacabka Soomaaliyeed gumaadaan sidaas oo kale waxa meesha ka dhacay dhaawac gaarsiiyay ilaa 13 qofood oo goobta ka agdhawaa dadkaas dhaawaca iyo dhimashadu waxay isugu jiraan shaqaalihii hotelka iyo dad shacab ah oo goobta ka agmariyay iyo argagixisadii iyagu soo abaabulay qaraxa inuu meesha qasaarahaas ka gaarsiiyaan saas oo kale waxa jira burbur hantiyeed oo soo gaaray hotelka iyo gawaaridii dadka shacabka ah oo jidka ka agdhawaa agaarka mariyay howlgalka oo xoogaa yar dheeraaday wuxuu soo gaaray ilaa 10kii fiidnimo sababta uu nolol dheeraadana waxay ahayd in aan yareyno isla markaana aan ka taxadarno inuu qasaaruhu intaas ay dhaafin oo qasaaro badan meesha uu san keenin hotelku wuxuu ahaa hotel dad shacab ay isugu yimaadaan oo loo soo shaah tago marka ujeedka argagixisaduna kaliya wuxuu ahaa inay qasaaraha ummadda kordhiyaan waxa hotelka laga badbaadiyay dadweyne gaaraya ilaa 300 oo qof oo isugu jira dad shacab ah iyo shaqaale dawladeed oo hotel ku sugnaa sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Tuulax ayaa isaguna ka hadlay qaabka uu weerarkani u dhacay waxa ay kooxaha argagixisada ku soo qaadeen hotelkan oo dad Soomaaliyeed oo ganacsato ah oo jecel dalkooda inay hormariyaan halkan ka dhisteen weerar sida uu sheegayna weerarkaas dhowr saacadood gudahood ciidanka amniga guud ahaan laamaha amniga isku wada jira iyo booliskaba waxay si wada jira u soo afjareen weerarkii halkan lagu soo qaaday dad badan oo shacab ah oo hotelkan u yimid inay waqti ku qaataan baa halkan ku jiray oo laga badbaadiyay argagixisadu mar walba waxay isku dayaysaa inay qalbi jabiso shacabka magaaladan degan oo runtii marxalado adag soo maray dadka eheladoodu ay dhibaatada ka soo gaartay weerarkani ayaa waxa kamid ah xildhibaan Maxamed Cabdi Kaafi oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka magacayga xildhibaan Maxamed Cabdi Kaafi Maxamed waxaan joogaa meesha goobta ay wax ka dhaceen hotel Elite inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun meesha waxa ka dhacay fal argagixiso aad u foolxun waxa ku dhintay dad aad u tiro badan oo aanan tiradooda ma garan karo waa iska mugdi laakiin qiyaasatan aniga family ahaan waxa igaga dhintay 2 ruux oo 2 wiil ah 3 qof baa ku jiray oo familka oo duurka ka soo tagay nin kamida safar ayuu ka yimid garow ka yimid nin ganacsada ah waxa gurigaygu joogay maanta qada isaga meesha lagu casumay nin kale oo yar agaasimo wasaaradda gaashaandhigga isna ah iyo nin kale oo janana saddexaas aniga family ahaan guriga ka soo tagay 2 kamida meedkoodii Allah u naxariisto jaranjarada lagu dilay gaariga aniga dambeeyay hadda saaran yihiin intii kale oo ku dhimatay iyo iyagana waxa leenahay Ilaahay jannada raxmaha siiyo waa musiibo waxa leenahay Ilaahay musiibooyinka noocan ah dalka ka qabtay tirahan anigu aad uma sii dhixgelin jaranjaradan labada nin ka soo qaaday inta jaranjarada aageedana 4 nin baan ku arkayay oo qayb dhar boolis qaba oo aan u malayna ku shabaabkii waxa sinaayeen ay doono laakiin 4 qof meelahaas aan arkay labada nin markii isku meel aan ka soo qaadeen waa ka soo noqday shay uma sii gelin aniga goobta kuma sugnayn haddaan imid oo ciidamada ay soo keenay sidoo kale dadkii goobta ku geeriyooday ayaa waxa kamid ah howlwadeen ka tirsan waaxda ka hortagga askaraynta carruurta ee ciidanka xoogga dalka sida uu ku waramayo agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga Professor Sakor Jaamac Giire Allah yarxamo waxa naga dhintay xubin kamid ah wasaaradda gaashaandhigga Daar Cali Warsame anada meedkiisa meesha ka soo qaadnay aan ugu wadnana isbitaalka Madiina waxaan uga tacsiyanayaa dhammaan eheladiisii asxaabtii dhammaan
xubnihii wasaaradda gaashaandhigga la soo shaqeeyey tacsiyaas maanta la gashay ilaahayna u naxariisto isaga iyo dhammaan inta kaloo meesha ku dhimatayba oo Soomaaliya milkiilaha hotel Elite xildhibaan Cabdullaahi Axmed Nuur oo isaguna saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in weerarka lagu qaaday hotelkiisa aanu waxba ka bedelaynin howlihii shaqo ee uu bulshada u hayay aniga dabcan waxada niyad jab gaar ah oo ugu leedahay waa ka xumahay runtii waana aad u xanuunsanayaa dhimashada iyo dhaawac halkan ka dhacay laakiin igama niyad jabinaysa yani dhacdo kasto aan kugu dhacayna sideeda waxa oo kugu dhacdo aan ku dhinsin waxa rabaa in adeeg iyo ka qaado ma aha in niyad jabiyaan waana hawshii aan halkan ka haynana waa sii wadayna howlo kale cusubna waa sii gali doonaa insha Allah waa sii laba jibaarayna nima niyad jabinayaan hadii Allah intaas walaal waxaan u daynaynaa hay'adaha amniga u daynaynaa ayaga iskala baaritaankii iyo wixii ka soo kordhanay dabcan iga la wadaagi doona warbaahin wallahi waxaan isleeyahay wixii dhacay iyo tirakoobkoodii iyo intaas waxaan u daynaynaa hadii Allah wada ka noqdo hay'adaha amniga oo gacanta ku hayay oo ayagu markii hore loo soo gurmaday oo maxaa la dhahaa nimanka cadawga ahaana meeshii ka dadkii shacabka ka badbaadiyay intoodii badneed dabcan in aan aad u jecelnahay naga dhimatay in waa naga dhaawac weerarkan lagu qaaday hotel Elite ee magaalada Muqdisho ayaa ahaa mid aad u culus waxaana uu ku soo beegmay xilli galab ay gudaha hotelka aad u soo buuxdhaafiyeen dad isugu jira siyaasiyiin iyo shacabka kale ee magaalada Muqdisho oo halkaasi u tagay inay waqti iyo nasiino ku qaataan kasakow tirada 17 ee la shaaciyay inay goobtaasi ku geeriyoodeen ayaa waxa soo baxaya shaki badan oo laga qabo in qasaaruhu uu sii kordhi karo waxaana jira baaritaano laga wado burburka hotelka iyo goobaha ku dhow oo ay dhici karto in meydad laga helo waxaana saraakiishu amnigu ay sheegeen in ilaa iminka hotelka laga soo badbaadiyay 300 oo ruux wixii baaritaano ah oo intaasi ku soo kordhana ay saxaafadda la wadaagi doonaan